Indonesia waa mid ka mid ah wadamada caalamka islaamka ee dhaca qaaradda Aasiya waana wadanka afraad ee ugu dadka badan adduunka wuxuu dalkan leeyahay taariikh dhow oo in badan dadku aanay ka warheynin warbixintan waxaan ku soo gudbin doonaa dagaalo lagu riqmay oo 60meeyadii uu dalkan martigeliyay xilli awoodda dalka ay ku loolamayaan Mareykanka Shiinaha iyo Midowga Sofiyeed October 1965 ayaa saraakiil dhalinyaro ah oo ka tirsan militariga wadanka Indonesia waxay dileen 6 generaal oo kamid ahaa generaaladii ugu sareeyay wadankaas waxaana saraakiishii soo haray oo uu horboodayay nin lagu magacaabo Suharto uu shaaca ka qaaday in waxa ka dhacay uu ahaa afgambi fashilmay oo ay taageerayeen shuuciyada militariga ayaa markaas kadib wuxuu bilaabay olole ballaaran oo lagu beegsanayo xisbiga Shiicada iyo xubnihiisa waxaana ololaha dagaal ee xilligaas uu militarigu qaaday isugu jiray dil qafaal kufsi tacdiibin iyo jirdil xoogan qoraaga bug lagu magacaabo The Killing Season ayaa tilmaamaya in talaabooyinka ay qaadeen militariga wadanka Indonesia ay taageerayeen dawladaha reer galbeedka gaar ahaan Mareykanka iyagoo booska ka riixanaya Midowga Sofiyeed ee horboodayay nidaamka hanti wadaaga ee shuuciyada ololaha military ee xilligaas wuxuu sidoo kale keenay in talada laga tuuro xukuumadii dhanka bidixda jirtay ee uu hogaaminayay Sukarno taladana waxaa gacanta ku dhigay saraakiishii militariga ee uu hogaaminayay Suharto 6 bilood kadib markii uu bilowday ololaha dagaal ee militarigu kaga dhawaaqay dalka laguna beegsanayay sida la sheegay xisbiga shuuciga ah ee Indonesia waxay tirada dhimashada noqotay 9 milyan ruux halka xabsiyada loo dhaadhiciyay dad ka badan 2 milyan oo qof kadib 1966 nidaamkii militariga ee uu hogaaminayay Suharto waxay isku dayeen inay suuq geeyaan in waxa dhacay ay ahaayeen kacdoon shacbi oo ay barbar socdeen maleeshiyad hubaysan kuwaas oo ka hor yimid nidaamka shuuciyada balse militariga oo taageero ka helaya dawladaha reer galbeedka ayay dadka wax ka qoray arrimahan tilmaamayaan inay ku lug lahaayeen wixii dhacay sida uu ku doodayo baare lagu magacaabo Robinson oo wax ka dhiga jaamacadaha Mareykanka asaaliibta loo adeegsanayay dilalkan waxay ahayd madax goyn toogasho bareer ah iyo arrimo kale arrimaha uu hoosta ka xariiqayo waxa kamid ah in ciidanka military ee Indonesia ay tababareen maleeshiyad maxalli ah kuwaas oo geysanayay weerarada ugu xoogan waxaana ay jiidjiidayeen meedadka shuuciyiinta iyagoo ku tilmaamaya inay yihiin shayaadiin ka liidata xayawaanaadka Mareykanka iyo xulafadiisa waxay militariga Indonesia ku taageereen fulinta gobodfallo ka dhan ah bini'aadanimada kuwaas oo ka dhacay wadanka Indonesia ayuu leeyahay qoraaga buugga The Killing Season mas'uuliyiinta Mareykanka oo ugu horeeyo madaxweynihii xilligaas ayaa u arkayay fursad taariikhi ah in dalka Indonesia laga nadiifiyo xisbiga shuuciga ah ee ku xiran Midowga Sofiyeed taasoo u sahlaysa in si sahlan kula wareegaan dalkan muhiimka ah ee ay ku nool yihiin muslimiinta ugu badan caalamka General Suharto oo talada kula wareegay afgambi ayaa dalka Indonesia maamulayay tan iyo sanadkii 1998 xilligaas oo dalka ay ka dhaceen dibadbaxyo ballaaran oo isaga lagu soo horjeedo waxaana si ka duwan qaar ka mid ah wadamadii caalamka ee ay gumaadyadu ka dhaceen oo maxkamado laga furay aanay jirin wax maxkamad ah oo laga hirgeliyay wadanka Indonesia si bal loo fiiriyo hadii ay jiraan dambiyo dagaal oo ka dhacay Indonesia dowrka Shiinaha ayaa laftiisa aad ugu muuqday xilligaas wadanka Indonesia waxaana wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ay 100,000 oo qori iyo saanado kala duwan oo hub ah ku taageereysay xisbiga shuuciga ah si talada dalka ay u hantaan madaxweynihii Shiinaha ee xilligaas ayaa kula taliyay xisbiga shuuciga ah ee Indonesia inay qortaan askar maleeshiyad ah kuwaas oo laga qoranaya baadiyaha iyo beeraleyda kadibna ay naf iyo maalba u horaan difaacidiisa inkastoo taageero hiil iyo hooba ay la garab istaagtay Shiinaha xisbiga shuuciga ah ee Indonesia haddana kuma guuleysan rajadii ay lahayd waxaana marka laga soo tagay weerarada culus ee ay militariga qaadayeen haddana jirtay in si guud shacabka muslimka ah ee Indonesia uu ka soo horjeeday afkaarta shuuciyada masaadirta qaar ee taariikheed ayaa tilmaamaya in dagaalada ka dhacay 60meeyadii wadanka Indonesia ay ka qayb galayeen rag ka tirsan jamaaco islaami ah kuwaas oo si adag ugu hortagayay askarta shuuciyada Mareykanka iyo Shiinaha waxay aad u qarinayaan inay si hufan uga hadlaan gacantii ay ku lahaayeen xasuuqyadii ka dhacay Indonesia 60meeyadii waxaana sanadihii dhawaa ay labada dhinacba faafiyeen qoraalo aan badnayn oo ka tarjumaya qayb ka mid ah wixii ka dhacay Indonesia dawladaha reer galbeedka ayaa wata nidaamka ra'asamaliga ah ee ribowiga ah halka dawladaha Ruushka iyo Shiinaha ay horboodayeen nidaamka hanti wadaaga waxaana dawlad waliba iyadoo adeegsanaysa awoodeeda dhaqaale iyo mid military ay doonaysaa in aragtideeda ay ku sandulayso wadamada caalamka islaamka dhammaan dawladaha ka dhisan caalamka islaamka waxay ku abtirsadaan labadaas nidaam mana jiro nidaam ka madax banaan oo ku dhaqma shariicada islaamka waana mid keentay dhibaatada maanta ka jirta caalamka islaamka rajada ummadda ayaa ku xiran Allah subhanahu wa ta'ala kadibna dadaalka ay wadaan jamaacadka jihaadiga ah ee ka howlgala caalamka islaamka kuwaas oo doonaya inay dib ugu soo celiyaan caalamka shariicada islaamka lana xoreeyo wadamada muslimiinta